Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa wada hadallo naadir ah waxa uu Muqdisho kula yeeshay safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya Mudane Maxamed Axmed Al Uthman sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble. Wada hadallada ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka labada dal oo aad u xumaa sanadihii dhawaa tan iyo markii uu dalka madaxweyne ka noqday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble. Ra'iisul Wasaaraha ayaa dowladda Imaaraadka kala hadlay sidii ay qayb uga qaadan lahayd gurmadka dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ku saameeyeen gobollo badan oo dalka ka mid ah. Xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble ma bixin faahfaahin intaas dheer oo ku saabsan kulanka. Sidoo kale safaaradda Imaaraadka Carabta ee Muqdisho wali wax war ah kama soo saarin kulanka labada mas'uul. Xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta waxa uu si aan horey loo arkin hoos ugu dhacay sanadkii 2017 markii ay bilaabatay xasradii gacanka Khaliijka xilligaas oo Soomaaliya ay diiday inay la safato Imaaraadka iyo Sacuudiga oo ka soo horjeeday dowladda Qatar isla markaana ay qaadatay go'aan dhexdhexaadnimo ahi. bishii May ee sanadkii 2018 Imaaraadka ayaa iskiis uga baxay kaalmadii nafbadbaadinta iyo iskaashigii military ee uu la lahaa Soomaaliya kadib markii uu aad uga xumaaday xiriirka labada dhinac. Tani waxay timid kadib markii ciidanka ammaanka ee Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen ku dhawaad 10 milyan oo dollar oo Imaaraadku diyaarad ku keenay si loogu siiyo askarta waxaana muddo gaaban la xayiray diyaaradii lacagtaasi keentay. Imaaraadku wuxuu kaloo xiray isbitaal bixin jiray adeeg caafimaad oo lacag la'aan ah oo ku yaalay magaalada Muqdisho laguna magacaabayay Sheikh Zayed Hospital. Taasi kadib Imaaraadka waxa uu xiriiro adag la sameystay ismaamulada Soomaaliyeed ee Puntland iyo Somaliland iyadoo sidoo kalena taageero u fidisay siyaasiyiinta mucaaradka ah ee jooga magaalada Muqdisho. Shirkadda DP World waxay 442 milyan oo dollar ku maalgelisay horumarinta dekedda magaalada Berbera tan iyo bishii Oktoobar sanadkii 2018. Dhinaca kale madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa shaaciyay in Soomaaliya iyo Kenya laga soo abaabulay qaraxyadii dhawaan ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda dalkaasi. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo wareysi siiyay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa bixiyay macluumaad dheeri ah oo ku saabsan qaraxyadii khasaaraha geystay ee ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda dalkaasi. Yoweri Museveni ayaa shaaca ka qaaday in qaraxyadaas oo laba ahaa laga soo abaabulay gudaha wadamada Soomaaliya iyo Kenya sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynaha dalka Uganda ayaa shaaca ka qaaday inay heleen cadeymo ku aadan weeraradaasi iyo in ay soo diyaariyeen kooxo iska soo abaabulay Soomaaliya iyo Kenya. Qaraxyadii Kampala ka dhacay dhawaan waxaan haynaa xoogaa calaamado ah oo ah in ay isku soo dubarideen kooxaha ku sugan Kenya iyo Soomaaliya ayuu yiri Yoweri Museveni madaxweynaha dalkaasi Uganda. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in wali laamaha ammaanku ay dabagal iyo baaris ku hayaan ragga soo qorsheeyay weeraradaasi oo geystay dhimasho iyo dhaawac. Daacish ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxyadan oo ay ku dhinteen ugu yaraan ilaa 6 ruux halka ay ku dhaawacmeen 30 kale oo dad rayid u badnaa. Kampala ayaa waxaa horey uga dhacay weeraro qaraxyo oo markaasi khasaare dhaliyay waxaana Uganda ay ka mid tahay wadamada ay ciidamadu ka joogaan gudaha Soomaaliya.